argagixisada inaan hilibkooda ku casheeyo waa shahiid ninka maanta al-shabaab dilay waa shahiid naga jecel ma jirto naga jecel diigana iyo laftanada hadii la shiido waxa laga helayaa Soomaalnimo xubnaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Soomaalida uqaasha culimada waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo guud ahaanba bulshooyinka ku dhaqan caasimadda deegaanka Soomaalida iyo nawaaxigeeda ayaa isku yimiday goobtan garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo ka soo laabtay furinta dagaalka ee lagu jiro xarakada al-shabaab hadaba madaxweynaha ayaa waxay shacabku uga mahadceliyeen isaga iyo ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida iyo ciidamada kale ee kala duwan ee deegaanka iyagoo isgarabsanaya guud ahaanba cirib tiraysoona afjaray xarakada al-shabaab oo dhawaan dagaal ku soo qaaday qayb ka mid ah deegaanka Soomaalida madaxweynaha oo goobtan khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay ayaa u mahadceliyay shacabka qaybahooda kala duwan sida diiran ay u soo dhaweeyeen iyo sidoo kale sida ay u garab istaageen ciidamada xoogga gaarka ah ee cirib tiraya xarakada al-shabaab waxana hadaladiisi kamid ahaa qorshaha wajigii hore uu dhamaaday argagixisadii saddexda aag isku day inay ka soo gashay deegaanka wax maanta farxada oo caraday wax la qabtay iyo wax la diiwaan laga dhigay argagixisada inaan hilibkooda ku casheeyo waa shahiid ninka maanta al-shabaab dilay waa shahiid halkani waa magaalada Jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida shacabweynaha caasimadda mas'uuliyiinta iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada dawladda deegaanka Soomaalida ee ku sugan caasimadda ayaa isku soo baxay barxaddan laamiga oo ah goobaha ugu muhiimsan ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga hadaba shacabka ayaa halkani u muujiyay ciidanka dareenkooda kaga aadan dagaalka ay kula jiraan xarakada al-shabaab ee ay ku jabiyeen guud ahaanba al-shabaab ku soo dushay deegaanka Soomaalida iyo qorsheeduna waa inay waxyeeleyso amniga deegaanka Soomaalida garab istaaga shacabka ee ay ku taageerayaan ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida oo goobtan iskugu yimid ayaa dareenkooda ka warbixiyay waxayna yiraahdeen cadow walba oo deegaankan iyo dalkan ku soo duuli lahaa baad cashar u dhigteen waxa duruus ka qaadanaya halgankaad gasheen dawladaha kale jaarkina laaba cashar ka qaadanaya gudaye madaasho makadaacadba aan qoshashe madaasho makadaacadba aan gudaye madaasho makadaacadba وعبد الحميد محمد وركه تلفزيون قبل ما